السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan galab wanaagsan waa barnaamijkeeni labaad maanta oo isniin aan idin soo gudbinayo taariikhduna waxay ku beegan tahay 8 bisha September sanadka 2025 qodobada barnaamijkan idinku hayno waxaa kamid ah Yahuudi maanta lagu weeraray oo lagu dilay magaalada Qudus oo tiradoodu ay korortay Netanyahu oo hanjabay xaalad adag oo la saaray dadka Falastiiniyiinta ee ku nool tuulooyinka ku dhow magaalada Qudus. Haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada waan idin hayaa. Waxa sidoo kale aan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo maanta si aan hore loo arag u duqeeyay magaalada Gaza. Dhowr guri ayay burburiyeen iyadoo qaarkood la sheegay dad in ay ku dhinteen. waxaa sidoo kale qaybaha dambe barnaamijka aad ku daawan doontaan Xuutiyiinta oo mar kale maanta weerar dhinaca diyaaradaha droniska ku qaaday Israa'iil. Hawada Israa'iil oo khalkhal fara badani uu ka muuqdo iyo ciidanka Israa'iil oo war ka soo saaray goordhow weerarkaas ay Xuutigu soo qaadeen. qodobadaas aynu barnaamijkeena galabta ku faahfaahineynaa. asxaabay inta aan ku jirno wixii warar soo kordhawaan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. ogeysiis muhiim ah waxaa lagu wargelinayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya in la furay xarun ay ku midaysan yihiin injineero Soomaaliyeed oo dhanka dhismaha ah. waxaana lagu magacaabaa xaruntaas Vanguard Solutions. waxay ka caawinayaan hindisaha iyo naqshadaynta dhismooyinka kala duwan sida daaraha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban, kaabayaasha culus ee dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka, eraboorada iyo dekadaha, iyadoo ay ku adeegayaan injineero khubaro ah oo ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa sida wadamada Midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe. waana khubaro ka diiwaan gashan machadyada qabiirada injineerada ee dalka UK sida macadka la yiraahdo Institution of Civil Engineers oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE, kuwaas oo ka gaaray heerka aqoontooda C Engineering iyo waliba dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye. waxay sidoo kale ku ballan qaadayaan inay ka shaqayn doonaan adeegyadaasi. fadlan la xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran si aad u hesho injineeradan takhasuska u leh dhismaha kala duwan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni labaad maanta oo ah maalinimo isniina. barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerarkii maanta lagu dilay Yahuudi lagu weeraray meel basaska laga raaco magaalada Qudus iyadoo la sheegay 2 Falastiiniyiin oo hubaysan inay nagta ka saareen. haddaba barnaamijkan kii ka horeeyay subaxnimo waxay maraysay xisaabtu 5 inay dhimatay, 15 kalena ay dhaawacmeen. inkastoo sidoodaba waxa ay sheegtaan Yahuudu shaki fara badan ku jiro. Falastiiniyiintu dood kulul ay qabaan. hadda waxay leeyihiin 5 hadday sheegteen 30 waa ka badataa inta dhimatay.
sababtoo ah inta baabuuro ambalaas oo meesha tagtay niyuuska sidoo loo xakameynayay wixii oo dhan ay ka sheekaynayaan laakiin iyagu waxay sheegtaan ayaa loogu wadayaa haddaba saake waxay maraysay markii hore 4 kadib 5 ay yiraahdeen 5 ay noo joogtay hadda marka maxaa isbedelay haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan idin tusayaa tirada dadka dhintay Israa'iiliyiinta waxay gaareen 6 kadib markii rasaas lagu furay magaalada Qudus warbixintu way sii socotay waxa leeyahay warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen in 6 qof oo Israa'iiliyiin ay dhinteen in sidoo kale 5 iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen weerar 2 dhalinyaro Falastiiniyiin maanta Isniina ay ka fuliyeen gudaha goob basaska laga raaco oo ku taala dhanka waqooyi ee magaalada Qudus haddaba warbixinada laga helayo dhanka Israa'iil waxay sheegayaan dadka la dilay in ay ku jiraan wadaad yahuudeedyo la sheegay inay goobta ku sugnaayeen waxaana sidoo kale la sheegay in qaar kalena oo wadaad yahuudiyada ah ay ku dhaawacmeen haddaba warbixinta dhanka kale waxay ka hadlaysaa booliiska Israa'iil ayaa waxay sheegeen inay markaa qabteen 2 qof oo kuwii fuliyay inay ka takhaluseen 2 qof oo kuwii weerarka fuliya ah oo la sheegay inay markaa la toogtay oo la dilay haddaba xarakada Xamaas iyo Jihaadul Islaami ayaa goor sii horeysay maanta hambaliyeeyay weerarkaas waxayna ku tilmaameen jawaabta ka dhalatay carada dadka Falastiiniyiinta ah oo Israa'iil maalin kasta gumaadayso marka nimankii hadda 6 ay sii marayaan intay sheegteen saakay 5 ahayd hadda 6 laakiin Falastiiniyiintu waxay leeyihiin meesha waxa ka dhacay nimanka nagta laga saaray waxay sidoo kale leeyihiin niman xaqaamin la yiraahdo oo xerow diimeedyada oo meesha iyaguna ku sugnaa qaar laga dilay qaarna waa laga dhaawacay dadkii meesha wax ku noqday ay ka mid ah Netanyahu ayaa isaguna hadlay waxa uu u hanjabay dadka meesha dhibaatada ka geystay baaritaano culus socda leeyahay dada laga qabtay tuulooyin ay Falastiiniyiintu degan yihiin oo duleedka Gaza meesha Qudus ku yaala iyaguna waa la hareereeyay oo halka marka xaaladdu aaday u kacsatay waliba qaar kamid ah mucaaradka ayaa dhaliil u jeedinaya ayada ammaanka waxay leeyihiin waliba acyaada ama ciidaha yahuudda oo qaarkood ay soo dhow yihiin waxaa laga baqayaa in sidan mid ka foolxun ay dhici doonto leeyihiin marka amnigu waa galab ay leeyihiin xaaladdu waa xun tahay nimankii ku fakarka bin Ghavirna waxay leeyihiin mar hore waxaan sheegnay jidaar amni wax leeyahay in meesha laga dhiso darbi weyn oo kala qaybinaya Falastiiniyiinta daanta galbeed iyo kuwa Qudus jooga si loo kala jaro iyaga dhan marka arrimahaas oo dhan doodahaas ayay dhaliyeen weerarkii maanta lagu qaaday waxay soo kale warbaahinta Falastiiniyiinta qaarkood sheegeen in kuwa meesha lagu dilay qaarkood ay kamid ahaayeen kuwii u ololeynayay Masjidul Aqsa in mar walba ay galaan yahuudda dadkii ka shaqeynayay qaarkood ayaa meesha ku dhintay marka inay yihiin wadaad diimeedyadan meesha iyo kuwa kale lama yaqaano laakiin wararkaas ayaa iyaguna soo kordhay dhanka kale maanta waxaa leeyahay duqeymihii ugu xumaa muddooyinkan ayay Israa'iil waxay ku qaaday Gaza markii la xanuujiyo iyadu markaa diyaaraday ku asqaysiinaysaa guryo fara badanna way dumisay dadkii markaa Falastiiniyiinta khasaaro xoog leh iyaguna soo gaaraalay haddaba markaa ardaydu soo wararkii ugu dambeeyay hay'adda wararka u faafisay Israa'iil ayaa waxay sheegtay magaalada Gaza inay la kulantay maanta duqeyn nooceeda aan horay loo arag hay'adda wararka Israa'iil waxay leedahay iyadoo soo xiganaysa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Israa'iil in magaalada Gaza ay maanta la kulantay duqeyn aad u culus oo ah mid aan horay loo arag sida ay yiraahdeen oo iyagu markaa ay sheegayaan marka waxa leeyahay marka meesha khasaaraas ayaa ka dhacay waxa soo kale la burburiyay maanta burj la yiraahdo burj ru'ya la yiraahdo xaafada la yiraahdo jaamacadyada burjigu waa saraan dheer ay maanta burburinayaan ilaa shalay maanta marka burjigaas ama gurigaas dheer
ayaa la burburiyey marka guri dhowr dabaq ka kooban ayuu ahaa dadka waa loo sheegay waxaa la yidhi saacadahaas gudahood haddaa uga bixi weysaan waa la burburinayaa dadkii marka way ka soo cararayaan dadkii waa alaabtoodii maalihiina ka soo qaadanayaan diyaaradihii waaweynaa Israa'iil ayaa dhowr gantaal ku dhufanaya kaliya guriga hal maruu husley gantaalo awood badan ayay u isticmaalayaan marka guryihii saasay u burburinayaan dadkii way leynayaan wararkii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan 39 qof dadka shahiiday inay maanta kaliya ay gaarayaan dadka Falastiiniyiinta ah haddaba mar kale aan idin tuso mid ka mid ah fiidiyowyadii maanta guriga markii ay duminayeen dadkii oo ka soo cararay guriga xoogiisa ka soo baxeen ayay gurigii maartay dhulka halbar gelinayaan bal aan aragno fiidiyowgan oo ah mid aad cajiib u ah oo maartay kamid ah fiidiyowyada dadka Falastiiniyiinta ay ku tilmaameen cadawtinimada heerka ay gaarsiisan tahay ay Israa'iil ula dhaqmayso dadka masaakiinta ah ee aan hubka haysan لا خلاص فيش ودعت dhanka kale dagaalo goosgoosa ayaa dhacay miinooyin ayaa loo dhigay taangiyo ay leeyihiin Israa'iiliyiinta oo isku dayay xaafado ka tirsan Gaza inay soo galaan laakiin halkaas waxay kala kulmeen iska caabin daran askarna waa laga dilay kuwana waa laga dhaawacay sida la leeyahay haddaba marka wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay warbixino la helayo waxay sheegayaan in la dilay 4 ka tirsan ciidanka Israa'iiliyiinta dhinaca waqooyiga marinka Gaza warbixino militariga Israa'iil laga helay ayaa qiranaya 4 ka mid ah ciidankooda in la dilay kadib markii miino lagu qarxiyay taangi marayay dhinaca waqooyiga marinka Gaza taangiga dhana shilmay miino dulku dul istaaga markaasay saas u dhalaalisay asaga dhan marka mirkaba leedaha kana leedaha meesha ma qoraan dhibakaan Al-Yaasiin hadii la qabsado waa kugu yaala miino yar hadii dhulka dhigaan waa ku qarxinaysaa marka waxa waa ala la jiree wehel uma baahna waa Allah watee wehel uma baahna Soomaaliya marka tiyo kala Gaza ka socota marka xaaladdu halkaas ay maraysaa wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee dhanka Gaza haddaba Israa'iil mar kale waxa soo weeraray baatay hawadeedii waa la isku haystaa ilaa hadda idin la hadlayo cabsi weyn ayaa taagan siirigii digniinta yeeraya diyaarado kale daroona oo xoutigu ay soo rideen ayaa mar kale ku feesteenaya dhanka koonfurta gobolka la yiraahdo Naqab ee Israa'iil majaacaha barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya quraanka hab casri online maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah quraanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shariicada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan waa barnaamijkeeni galabnimo waxaanu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka xootiga maalmahan waa iska soo daba laabtay nigtu ka saaray shalay waa ogeydeen airportka la yiraahdo Raamood miduu ku dhigay dhexdooda isqabsadeen maantana dhowr diyaaradood soo diray ogaada wali Yaxya Sariic ma soo hadlin ayaga kaliya hadda hadalka isu baabaasay warbaahintooda oo ka hadlaya waxa dhacay
haddaba wararkii ugu dambeeyay ay qoreen haddaan idinla wadaago idaacadda ciidanka Israa'iil waxay sheegtay 3 ka mid ah droniska Yemen ka yimid inay soo dhex mareen oo ay soo galeen hawada Israa'iil. idaacadda ciidanka Israa'iil waxay leedahay 3 drone ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dhanka Yemen iyagoo soo galay Israa'iil waxaana u suuro gashay inay soo dhex jeexaan hawada Israa'iil iyadoo wax arkay aanayba jirin. waxaana u suuro gashay mar dambe oo ciidanku ay ku baraarugeen inay ka hortageen oo ay gantaalo ku weerareen oo ay la dirireen diyaaradahaas. ma u jeedaa warbaahinta waxay leedahay way iska soo dhex jeexeen saas ayagoo hawada u soo diyaaradihii iyo wixii qalabkii wax qabanayay gantaalihii ballantu waxay ahayd gantaaluhu inay Israa'iil banaankeeda kaga hortagaan hawada banaankeeda. laakiin mar haddii hawadaada la soo galo xataa haddaa soo rido ayadoo holcaysa xagee ku duldhacaysaa waxay ku duldhacaysaa guriyihii dadku deganaayeen. mar walba marka khasaaruhu wuu imaanayaa. marka gantaalahan waxaa loogu talagalay leeyihiin banaanka Israa'iil inuu ka rido laakiin waaba iska soo dhex jeexaysaa saasay u soo socotaa waa laafiyoonaysaa diyaaradda dhag waa kor timid iyadoo la kor taagan yahay ayaan la diranay leyn markaasaa siirigii la yeerinayaa waa la kala cararaya maxaa laga gaaraa maray nagta ka saartay waay. laakiin iyagu hadda waxay leeyihiin 3 diyaaradoodba waa la diraneen ciidanku wayna soo rideen laakiin waxaa noo dhiman oo isaguna soo hadli doona jawaabtooda siin doona يحيى سريع أفينك حوتيو وكوجاد حوتيو عادي معها أبو يمن الإيراني ما كاس نمر عادي معها نمر كاس هو يسوتشيستين مال كستال لقصو مري دقال كان نجتشو جيالين قرا كستال لو درالولي وحير هذا ماي أنت أجزب بم كريديسان أنا ورا ذي كريدينا مركا كتشوتش سوا تشوتشينا خلاص وحكي لهم جرو أذيك هذه الليلة نكالين الليلة marka beeshaas waxa uu baraya marka Abu Mayan igu soo orod ma Abu Yaman caadi ma barnaamijkii waa naga intaa fakarkiina aragtidiina idinkuna dhiibto ku mahadsantiin sida aad barnaamijyada mar walba uga qayb qaadataan oo fakarkiina aragtidiina aad u soo qortaan asxaabay like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka hada cusubta subscribe ka kilo YouTube ka Facebook na follow gareey inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.